بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نجاليال كسو دوادا عشر كيني امتحانها نوها وروحان سو دميني لaba jabtar hore jabtarkii koowaad oo aan uga soo hadalnay financial statements and their importance bandhig maaliyadeeda laga rabo ganacsiyada inay sameeyaan iyo muhiimadda ay ku fadhiyaan. Sidaas oo kaleeto waxaan soo qaadan chapterkeeni labaad oo ku saabsanaa money and banking, lacagaha iyo bangiyada ku saabsanaa. Maanta insha Allah waxaa bilaabi doonaa chapterkeeni saddexaad oo aan uga hadli doono hadduu la yiraahdo public finance waxaa loo yaqaanaa dowladda. chapterkan wuxuu la xiriiraa dowlad iyo siyaabaha ay wax ku maamusho, dowladda iyo siyaabaha ay lacagaha soo galo, dowladdu intee lacag ka soo galaan, lacagaha soo galan intee ku bixisa ayaa ku baran doona. Public finance, ereygaas public finance laba qayb ayuu ka kooban yahay. qayb waa lacagaha soo gala dowladda, qaybna lacagihii soo gala meelaha ay ku bixiso. public finance ayaa qeexitaankeeda markaa kor tagno ayaan arki doonaa. public finance waxaa loo yaqaanaa lacagaha soo gala dowladda iyo meelaha ay ku kala bixiso ayaa loo yaqaanaa public finance. Public finance aan umaano public finance magaceedu qeexno. Public finance refers to waxaa loola jeedaa activities howlaha carried out ay fuliso by the government dowladda associated kuwaasoo la xiriira with raising inay soo aruuriso of finances lacago and spending sidaas oo kaleeto iyo qarash gareynta of finances ee lacagihii soo raised ee lasoo aruuriyay. Public finance waxay ka kooban tahay laba shay. Kow, dowladdu siday ku soo aruurisaa lacagaha iyo inta lacagahaas ay soo aruurisay intee lagu bixiyaa. labada shay ay ka kooban public finance. Public finance refers to waxaa loola jeeda activities howlaha carried out ay fuliso by the government dowladda associated kuwaasoo la xiriira with raising soo aruurinta of finances ee lacagaha ama maaliyadda and the spending of iyo qarash gelinta ama qarash gareynta of finance lacagihii soo raised ee lacagihii lasoo aruuriyay qarash gareyntooda. The government dowladda of any country ee wadan kasta dowladdiisa requires waxay u baahan tahay funds lacago in order to provide ay u siiso its citizens muwaadiniinteeda with goods badeecooyin and services iyo adeegyo dadka dowladda dadkeeda. lacag tusaale ahaan wadanka dad ku nool waxay u baahan yihiin isbitaallo, waxay u baahan yihiin waxbarasho, waxay u baahan yihiin wadooyin loo dhiso, waxay u baahan yihiin ammaankooda la sugo, waxay u baahan yihiin elboorro loo dhiso, waxay u baahan yihiin dekedo loo dhiso, waxay u baahan yihiin webiyada loo hagaajiyo, waxaas warshada loo dhiso, dhammaan shaqaalaheedu mushaar la siiyo. waxyaabahaas oo dhan dowladda ayaa laga raba marka inay sameyso. dowladdii laga rabo marka inay sameyso waxay ku khasbantay inay lacag ku sameyso wixii ay hesho. Therefore public finance waxaan ku qaadan doonaa sidee dowladda lacag ku soo gashaa ku soo aruurisaa, lacagihii soo galana sidee lagu bixiyaa ayaan ku qaadan doonaa. Public finance waa chapter aad muhiim ah marka aan la socono. qaybteena labaad aan umaano sources ilaha of public finance ee dowladda ay ka soo gasho lacago. sources ilaha of public finance ee dowladda ka soo gasho lacago. ilaha ay dowladda lacag ka soo gasho waxaa jira ilo badan oo dowladda lacag ay ka soo gasho. kuwa qaar laba ayaan ugu muhiimsan aan ku baran doona insha Allah fasalkeena form 4 ka ayaan ku baran doona. labada shay kow horta balan tirina meelaha ay lacag ka soo gasho. Number 1, ilaha ugu waaweyn ee dowladda lacag ka soo gasho waxaa ugu horeeya taxes canshuuraha. waxaa ugu horeeyo number 1 taxes canshuuraha ayaa ugu horeeya. number 2 government borrowings deymaha ama amaahya dowladuhu soo deynsadaan ayaa ka mid ah.
qodobka labaad waaye government borrowings amaha deymo ay soo amaahsadaan ayaa ka mid ah fines ganaaxa and penalties iyo ganaaxa waa isku mid lacagaha lacag tusaale ahaan dowladdu qof baaba qalad gale lacag tusaale ahaan darawal waaye baabuur wataa laakiin baabuurku wuxuu wataa laysin la-aan u wataa lacag ganaaxa laga qaada waa sababtoo asoo laysin la-aan sababtoo baabuur u wada waxaa kaleetoo laga yaabaa inuu qalad uu galay wixiiba lacag ganaax isku soo galo dowladda fines and penalties lacagaha ganaaxa ah ee soo gala dadkuwa dowladda waxay ganaaxeen lacag tusaale qofaa taraafikadii oo kaleeto ku xadgudbay lacag qofaa wax qalad wixii qaladkuu sameeyey ayaa lagu ganaaxaya fines and penalties ganaax waa lacagaha kasoo gala ganaaxa license fees lacagaha shatiga ay ku goyso dowladda haddii hore waxaan soo sheegnay hore soo qaadanay haddii haddaad ganacsi furinayso shatiyaa lagaa rabaa haddaad baabuur wadayso shatiyaa lagaa rabaa haddii haddaad wax samaysanaysid oo xarun cusub aad samaysanaysid shatiyaa lagaa rabaa shatigu waa marka waa ogolaasho dowladeed dowladda inay ku ogosho in wax furad markii shatigaas lagu sameynayana lacagaa laga qaaday license fees lacagaha shatiga kasoo gala shatiga license waa shati feesna waa lacagaha shatiga kasoo galo ayaa kamid a meelaha lacag kasoo gala dividends and profits earned from government investments dowladdu lacagaheeda marka qaar waxay ku sameysaa maalgelino lacag tusaale ahaan waxay dhisay wadooyinkii waxay ka qaadanay lacag ama waxay dhisay elbooradii lacag ka qaadanay faa'iidooyin ayaa ugu soo xaroona ama waxay dhisay oo kaleeto isbitaaladii kale iyo waxbarashadii kuwaas oo kale lacag laga maraysama meelaha qaar ayay maalgelin ku sameynay dowladdu dividends haraaga and profits iyo faa'iidooyinka inad laga helay from government investments maalgelinada ay sameyso dowladu ay sameeyaan meelaha lacagaha laga helay kamid haddii kabsoo qad marka dhul waxaa jiro dowladdu lacag haystaa lacagta haysta waxay ku sameeyaan dhulay ku gadeen dhulkaas waxaa loo isticmaalaya dan guuda loo isticmaalaya hosbitaal oo kale taa laga dhigay isbitaalkiisa oo loo isticmaalo isbitaalkii cariiriyu noqday waa laga guri isbitaal kale taa la aadaan isbitaalka dowladda meesha musig yaalla may dowladdu waxay sameynay weygade markay gado lafihii markii hore ugu fadhiyey iyo hadda lafaha iyo hadda lacagta u gado waa la kala jaraa proceeds lacagta ka dheeriga ah from the sale of government property from the sale iibinta la sameynayo of government property hantida dowladda hanti dowladeeda lacag tusaale ahaan waxaa la iibin dhul dowladeedoo kaleetaa la iibinaya lacagii wixii kasoo xarooda proceeds inta ka dheeriga lafihii lagu galay from the sale iibinta lagu sameynayo of government properties ee hantida dowladda shantaas meel ayaa macal 6daas meelood ayaa ugu waaweyn meelaha lacag soo gashay canshuurihii deymihii lacagii ganaacaha lacagii shatiga faa'iidooyinka maalgelinta ay ka heshay iyo haddii iibs waxyaabaha qaar iska iibiso wixii lacag ugu soo xarooda marka chapterkeena insha Allah labada ugu horeeya ku qaadan doona government taxes canshuuraha ay dowladdu qaadaan and borrowings iyo amaha ay lacag soo amahdaan are the main sources waa ilaha ugu waaweyn of government revenue ee dakhliga soo gala dowladda okay hadda waxa la public finance maxalla waa dowladdu sidee lacag ku soo ururisaa lacagahaas soo ururisana sidee dadkii dib ugu bixisaa sidee dib ugu qarash gelisaa meelaha lacag ka soo gasho waa 6 meel canshuurtii amahay ganaaxii shatigii faa'iidadii ka heshay maalgelintii iyo iibintii ay sameysay wixii ka dheeriyaa okay aanu maano marka government borrowings aanu maano waxyaabaha amaahda ah ee dowladdu soo amaahdo aanu maano dowladdu laba meel ay macaan wax ka soo amaahan kartaa ama wadanka gudihiisa ay wax ka soo amaahan kartaa ama wadanka banaankiisa ay ka soo amaahan kartaa wadanka gudihiisa waxay wax ka amaahan kartaa dadka ganacsatada ah iyo shirkadaha ay wax ka amaahan kartaa shakhsiyaad dad badan oo shakhsiyaad lacag la hanti laha jirsama dadkaas badan oo shakhsiyaadka hantida leh ay wax ka amaahan kartaa ama waxay wax ka amaahan kartaa shirkadaha waaweyn ee wadanka dhexdiisa ku yaalo ayay lacag ka amaahan kartaa markii wadanka gudihiisa markii wadanka banaankiisa taa laba mid noqon ama wadan kaleeto sida wadanka Ingiriiska oo kaleeto ama wadan kaleeto wadan dibadda Soomaaliya iyo Ingiriiska Soomaaliya Mareykan Soomaaliya Sacuudi laba wadan waa Soomaa wadan la xiriiraya ama Soomaaliya
inay wadan dowladda wadankan ay ka qaadato wadan kaleeto ama inay ka qaadato hal ama maaha sooma waxaa jiro hay-ada caalamiya sanduuqa caalamiga sanduuqa maaliyadda adduunka oo kaleeto IMF ama World Bankiga adduunka oo kale World Banki in ay ka qaataan deyn ay ka qaataan okay laba mid marka dowladda hadii ama qaadan labada qaab ay u qaadataa ama wadanka gudihiisa ka qaadane ama banaankiisa ay ka qaadane wadan gudihiisa marka qaadatay ka qaadane shirkadaha iyo shakhsiyaadka wadanka ku nool oo soo muwaadiniinta ay ka qaadane okay hadii wadanka banaankiisa loo ama wadan kale ay ka qaadanayaan ama hay'adaha caalamiga ay ka qaadanayaan government borrowings ama dowladda the government dowladda may raise waxa laga yaabaa inay soo aruuriso ama ay ka qaadato finance lacagaha from either midood internal gudaha or external borrowings ama dibadda inay sameyso dowladdu waxay lacag ku heli kartaa inay qaab amaah ku qaadato ama mid gudaha ha ahaato internal borrowing maxay ama gudaha or external borrowings ama dibadda ah inay sameyso the outstanding government borrowing amaahda dowladda ay sameyso ee taagan outstanding lacagta taagan government borrowings amaahda dowladda ay sameyso oo taagan at any time waqti kasta is referred to waxaa loo yaqaanaa public debt deynta dowladda lagu leeyahay or national debt ama deynta dowladda lagu leeyahay waa isku mid haddii dowladdan amaah ay soo qaadato lacag tusaalahaan dowladda maanta jirta deyn qaadato tan waa iska tagtay dowladda wax waqti kooban jiraya waan isbedeshaa sooma waa iska tagtay dowladtii ku xigtay aad timid tii ku xigta ma dhihi karto dowladda hore wax deensatay lagama rabo waa laga rabaa intiiba dowladda magacaas ku tirsatay jirto aydan waa laga rabaa okay internal borrowing amaan marka amaahda dadka gudaha ay ka sameeyaan internal borrowing refers to waxa loola jeedaa borrowing amaahda by the government ay sameeyaan dowladdu ay ka sameeyaan from firms shirkadaha yaryarka shirkadaha ay ka qaataan an individual shakhsiyaadka within the country wadanka gudihiisa laakiin wadanka gudihiisa waa internal borrowing waa maxay waa amaahda ay ka qaataan shakhsiyaadku shirkadaha waa amaah ay ka qaataan dowladuhu shakhsiyaadka iyo shirkadaha wadanka gudihiisa ku nool okay external borrowing amaan marka kan iyada waxay noqon kartaa bilateral mid laba geesoola by waa laba dhinac leh lateral laba dhinac leh bilateral waa laba dhinac leh or multilateral ama basis waxay noqon kartaa mid laba dhinac wax ka badan leh dhowr nooc leh bilateral borrowing waa marka bilateral borrowing refers to waxa loola jeedaa waxaa loola jeedaa where country markii wadan borrows uu ka amaahdo directly si toos from another wadan kaleeto wadan markuu wadan kale uu ka amaahdo ayaa waxaa loo yaqaanaa bilateral borrowing ayaa lahaa such as sida Soomaaliya and Britain wadanka Soomaaliya Britain markii Soomaaliya lacag deyn ka qaadato Britain ama Britain uu ka qaato deyn Soomaaliya uu ka qaato sidaas oo multilateral borrowing refers to either waxaa loola jeedaa where country markii wadan borrows uu ka amaahdo from international monetary fund IMF ee sanduuqa maaliyadda adduunka and World Banki iyo bankiga adduunka ama hay'adda caalamiga ama sanduuqa caalamiga ah ee maaliyadda labadaas midood inuu ka amaahdo macallin borrowing government borrowing dowladdu markay lacag u baahato lacag way soo amaahan kartaa magaca dowladnimada ku soo amaahane laba meel ka soo amaahan kartaa ama waa internal ama waa external okay internal ama external haddii internal ay tahay waxay ka amaahanay shakhsiyaadka iyo shirkadaha wadanka gudihiisa ku nool haddii external tahana bilateral ama multilateral waaye bilateral waxaa jeeda wadan in wadanka deyn ka qaadato ama haddii multilateral tahay in hay'ada caalami waxaa jira ay ka qaadato okay intaas markaa gudubno haddana waxaan qaadanayaa marka government expenditure waxaa loo yaqaanaa meesha dowladdu hadda waxaan soo ogaanay public finance maxaa dowladdu waa public finance waxaa loo yaqaanaa sidee dowladdu lacag ku soo aruurisaa kuna bixisaa sooma sidaas oo kale hadda waxaan soo ogaanay marka meelaha ay dowladdu lacag ka soo galaan waxaa ugu horeeya canshuurtii waxaa ugu horeeya amaahdii waxaa ku xigo ganaax oo soo qaadan dowladdu markii deen u baahato meelaha wax ka soo deensan karto laba nooc internal ama external hay internal oo wadanka gudihiisa shakhsiyaadka shirkadii external
وصوشك هذا حقا من government expenditure دولة لعك هديها شو أنت كبهسا expenditure قرش جرين وقرش جرين قرش به لعكي سينا بحسو government expenditure دولة ثيابها أي قرشات كذا كبهسو government expenditure refers to حالولا جيدا the spending قرش جرينتا by the government دولة of the finance لعكي it has raised لعجيه أي سو أروريسي إن أي خرج جريسو أو أي بحيث أي لوي غانا government expenditure مع المحل لوي غانا refers to حالولا جيدا the spending خرج جرينتا by the government أي دولة of the finance لعجيه it has raised أي سو أروريسي إن أي بحيثو أما أي لعجيه أي سو أروريسي إن أي بحيثو مقنع علاقة من categories قيبها of government expenditure كا أما قرشات كا دولة قشو دولة بحنيسو مقنع علاقة بي there are وحاجرة two main types لو نعود وين of government expenditure سي قرشات كدولة قشا they are أيضا وحي كليهين recurrent government expenditure كوا صولا لابتا قرشات كدولة قشو وكوا صولا لابتا هي أما حين نقول لابد نعقب سمان أو كو صورة اللابتو هي لاب development expenditure هي قرش بحين هرمارينات أما قرشات كو هرمارينتا لوغو تلقى قرشات كي مع government expenditure هو قرش كي دولة بحيسو والعقد دولة متلقى شيء إن أي كوب بحيسو العقية يسوى روريسي أوكي لابد نعيا لو قيبيا كواسو كلا recurrent كو صورة اللابتو كو جوكتا maxaa laga wada arki doonaa iyo kuwa development expenditure waa qarash gareen loogu talagalay in wax lagu horumariyo haye maxaa laga wadaa kuwaas okay recurrent expenditure aanu maan marka midkeena koowaad recurrent expenditure refers to waxaa loola jeedaa the government spending qarash gareenta ay dowladda qarash gareynayso that takes place kaasoo ka dhaca on a regular basis tiro joogta ama si joogta u dhaca waa qarash gareenta ee dawladdu sameeyso kaasoo si joogta u dhaco maxaa loola jeedaa lacala tusaale ahaan mushaarka la siiyo shaqaalaha dawladda u shaqeeya waa joogto sooma bil walba waa la siinaa sanad walba waa la siinayaa mar walbana waa la bixinayaa waxaa kale oo kamid ah daawooyinka la geeyo isbitaalada dawladdu ay leedahay isbitaalada dawladda la daawooyinka la geeyo isbitaalkaas intii uu shaqeynayo si joogta ah daawada loo siinayaa shidaalka la siinayo baabuurta dawladdu ay ku shaqeyso waxaas oo dhan maxay noqonayaan recurrent expenditure waa qarashaadka soo laabta ayaa loo yaqaan macna recurrent expenditure waa marka refers to waxaa loola jeedaa government spending qarash gareenta ee dawladda qarash gareynayso that takes place qarashka ee dawladda bixiso that takes place kaasoo u dhaca on a regular basis si joogto ah loo bixiyo examples tusaalooyinka of recurrent expenditures qarashaadka soo laabta waxaa ka mid ah payment bixinta of salaries ee mushaaraadka of civil servants waa shaqaalaha dawladda civil servants shaqaalaha dawladda mushaarkooda ayaa ka mid ah provision in la bixiyo of drugs daawooyin in la siiyo to hospitals isbitaalada shaqeynaya ee dawladda maamusho in la siiyo daawooyin and fueling iyo in shidaal la siiyo baabuurta ay dawladdu ay leedahay in sidaas oo kale shidaal la siiyo recurrent expenditure bisilfan waa kuwa si joogto ah mar walba loo bixiyo qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa development expenditure waa qarashaadka developmentiga horumarka lagu sameeyo development expenditure waa qarash bixin ee dawladdu wax ku horumarinayso this refers to tan waxaa loola jeedaa the government dawladdu spending qarash gareenta ama qarashka ay bixiso dawladdu that goes kaasoo ku baxa into financing in lagu maalgeliyo specific projects mashaariic gaara government expenditure development expenditure waa marka waxaan tusaalahan waxaa la taga degmo ee ka soo qaad afgooyo kala taartay afgooyo waxaa la afgooyo malaha elbor loo dhiso waa mashruuc horumarineed afgooyo boondada ka jaban boondaha loo dhiso afgooyo laamiga ka jaban laamiga loo dhiso macna waa hor hal mar la dhisaa kuwaas mar walba marka boonda ma la dhisaa mar walba laamigaas ma la dhisaa hal mar haddii la dhiso muddo lagu moodaa ma saas
development expenditure this refers to waxaa loola jeedaa government spending qarash gareynta dowladda ee qarash gareyso that goes taasoo ku baxdo into financing maalgelinta specific projects mashaariic gaar ahaaneed ku baxdo examples marka tusaalooyinka of development expenditures ee qarashaadka ee dowladda wax ku hormariso waxaa ka mid ah kuwa lagu bixiyo construction dhisida of railways wadooyinka tareenka wadooyin tareen loo baahdo in la dhiso roads wadooyinka waaweynka airports elboro industries warshado and administration office iyo xafiisyo dowladeed oo kale kuwa lagu dhisaa development expenditure waa maxay waa qarashka ee dowladda ku bixiso horumarinta waddanka ay ku bixiso sida wadooyinka la dhiso elboradii la dhiso wadooyinka tareenkii la dhiso warshadihii la dhiso xafiisyada dowladda la dhiso waxyaabahaas dhan lagu bixiyaa waxaa loo yaqaanaa